duuliyihii Itoobiya ay qabsatay iyo sidii la yaabka lahayd ee uu ku soo baxsaday. duuliye weydow waxa uu ku dhashay degmada Buulaburde, waxa uu wax ku soo bartay Ruushka, waxa uu xeel dheer ku ahaa gadgadoonka miiga, waxa uu hawada ku qori jiray magaca Soomaaliya iyo kuwa kale oo fara badan. dagaalkii Itoobiya 1977 waxa uu burburiyay dhufaysadii xabashida ee ugu cuslaa. waxa hawada ku qabtay diyaaradaha dagaalka Itoobiya oo garbaha ka galay xilli uu rabay in uu garaaco taris u dhawaa magaalada Addis Ababa. raadiyaha Itoobiya ayaa laga baahiyay in ay Soomaalida ka qabsadeen MiG-17 iyo duuliyihii waday. durba xabashida ayaa bilowday damaashaad, ilaa waxay gacanta ku soo dhigeen duuliyihii qarniga 20aad ee Afrika ka yaabsaday. waxa ay ku amreen inuu ka dego garoon ku yaalay magaalada Addis Ababa duleedkeeda. markii uu hubsaday inay cagaha dhulka saareen kuwii galbinayay ayna ridi karin gantaal, ayuu xawaare ugu duulay hawada asagoo marba dhinac u rogaya miiga si aan loola helin rasaasta. ciidankii dhulka ee garoonkaas ayaa ku furay sawaariikh iyo lidka diyaaradaha. waxa uu sii duqeeyay talis ciidan. waxa uu ka degay Djibouti oo uu shidaal ka sii qaatay. xilli ay murugo ku jireen madaxda qaranka ayuu gacan kala hadlay. halow, waa duuliye weydow oo ku guda jira shaqadii qaranka. waxaa lala ilmeeyay farxad. alalaaska ayaa isqabsaday xarumaha gaashaandhigga iyo afisyooni. duuliye sare Cabdullaahi Weydow waxaa la siiyay biladda dagaalka ee geesinimada ee dahabka ah, geesi qaran ee nidaamkii libaaxyadii Afrika ka mid ahaa ayuuna ahaa. waxa uu geeriyooday 1984 duuliyihii Afrika, duuliyihii mucjisada cirka. waxaa codsan jiray in ay arkaan duuliyaal caalami ah. madaxdii imaan jirtay Soomaaliya ayaa ayaguna sidoo kale codsan jiray inay arkaan. waxaa sidoo kale codsaday inay arkaan maxaabiis laga qabtay Itoobiya iyo maamulkii Mugista, waana loo diiday dhammaan inay arkaan ninkan. haddaba suurtagal ma tahay inaad shargarayso muuqaalkan? haddii aanan dhulkaygo dhuux cadaawa ku karin, haddii aanan dhulkaygo dhiig kuugu fooldhegin, haddii aanan dhulkaygo gobanimaada soo dhicin, Soomaali kama dhalan.